maalinnimadii shalay ayaa waxaa xaflad u qabsoontay dugsiyada Al-Furqaan. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada gudoomisada waxbarashada, cuqaal, culimo oo diin, waalidiin. xafladan ayaa ujeedkeedu ahaa kadib markii uu soo gabagaboobay teeramkii koowaad ee waxbarashada ayaa waxaa loo qabtay ardada xaflad lagu gudoonsiinayo ardada gashay kaalmaha sare ee dugsiyada Al-Furqaan shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan. dugsiyada Al-Furqaan ayaa ardada u qabtay inta ay waxbarashada ku jiraan tartan aqooneed iyo waliba ciyaaro kala duwan sida kubadda cagta, kubadda kolayga, boodada, orodka oo iyaguna la gudoonsiiyay kala duwan. waxaana ugu horeyntii daah furay xafladda maamulaha dugsiga dhexe Ustaad Maxamed Ismaaciil Jaamac. dhammaan martisharafka kala duwan maayarka degmada gudoomisada waxbarashada gobolka, waalidiinta kala duwan ee rag iyo dumarba leh, dhalinyarada, aqoon-yahanka, ardayda, macallimiinta, dhammaan dadka tirada badan ee xafladan ka soo qayb galay ee aan magacyada soo koobi karin. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaana leeyahay ku soo dhawaada xafladii 15aad ee dugsiga Al-Furqaan ee caam ah ee arday iyo waalidiin iyo martisharaf ay ka soo qayb galaan. maadaama iskuulku uu 18 sano sanadkii 18aad uu ku jiro 35 xafladood ayay tani ku tahay xafladaha caamka ah ee uu qabto iskuulku ee sanad walba labada xafladood ay dhacaan, mid teeram koowaad iyo mid teeramka dambe lagu soo xidhayo. laba ujeedo ayay leedahay: in lagu soo gabagabeeyo oo lagu ogaado natiijadii imtixaanka teeramka koowaad, iyo in lagu soo gabagabeeyo isna barnaamijka aqoonta iyo waxbarashada barbar socda ee aanay kala maarmi karin ee ah barnaamijka activity-ga iyo nashaadaadka ardaydu ay qabtaan. haddii aan usoo gudbo barnaamijkan nashaadaadka iyo activity-ga, waxaa loo sameeyaa يعني عيارة يريد كتمير يريد بلوص منيا سوي وجه السلام. إذا ذكرون كنا كأبو أركان وكذا فلو عيارة كذا كذا دوان باسكت يوفول بول يوحياها كتمر عادي أو كتمر. intaa kadib ayaa qaar ka mid ah ardada dugsiyada Al-Furqaan ku soo bandhigeen xafladda nashiido aad u qiimo badan. kale ayaa waxaa ka hadashay gudoomisada waxbarashada gobolka Sanaag Xayaad Maxamed Maxamuud Xayaad Lood. maanta waxaa soo gabagabeeyay teeramkii waxbarasho ee hore macallimiinta iyo maamulka juhdi weyn ayay geliyeen siday u soo saari lahaayeen siday u diyaarinayeen nidaam wanaagsan oo imtixaankii ah. waxaan sheegayaa ardayda markaa maadaama ay macallimiintii juhdiga badan geliyeen, maadaama ay idinku xafladeynayaan sida idin dhiirigelin lahaayeen oo markiina waxbarasho ay kor ugu qaadi lahaayeen. gabagabadii ayaa waxaa soo xiray maayarka magaalada Baran Cabdirasaaq Axmed Ciise. waxaan aad iyo aad wax loogu qaato oo looga feejignaado ah in teeramkii yaraa ay nataa'ijkii iyo natiijooyinkii helaan halkan nagu soo bandhigaan. wixii daliila jirayna ay waalidiinta la sheergareeyaan ardayda dhigata dugsiga. wixii talooyin iyo waano iyo wax sheeg ahaana ay halkan inooga soo tegiyeen. hadal aad iyo aad wax ku oolu ah oo wacyigelin iyo fariin iyo digniin iyo maxaan ku idhahdaa xog tusaaleynta isugu jira. Ciid Axmed Finde, Royal TV, Baran.